siyaasi Khaliif Maxamed Warsame Khaliif Xiinwaal oo kamid ah siyaasiyiinta xisbiga Kulmiye oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa iska difaacay eedeymo uga yimi maayarka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad isagoo siyaasi Khaliif Xiinwaal sheegay in eedeymahaas uga yimi maayarka degmada Burco ay yihiin kuwa waxba kama jireen waxa ila sharay baraha bulshada wareegay war uu sii daayay maayarka magaalada Burco warkaas oo ku saabsanaa eedeymo ay aflagaado xaggayga ku socday maayarku wuxuu sheegay waxyaalo badan oo ka hadlayay oo aan marnaba maskaxda bini'aadamka geli karin dhowr cisho ka hor wuxuu maayarku soo abaabulay odayaal uu ku ururiyay hudheelka Balaasa odayaashaas aflagaado iyo eedeymo u jeediyay xukuumadda Soomaaliland iyo wasiir Maxamed Kaahin Axmed abaabulkaas oo lahaa maayarku oo xagga dambe u fadhiyay oo ku yiri qabtay shirka jiray tii isagu uu watay markii ay socon weyday wuxuu bilaabay aniga oo arrinka ka hadlay oo si nabadgelyo ah uga hadlay oo si odaytinimo u dhaxgalay oo ummadda walaalaha ay nasiir degan isu soo jiiday kana hadlay dantoodu inay ku jirto wada noolaanshaha iyo wada jirka iyo wada qabsiga wixii dhexdooda yaalla ay si nabadgelyo ah u dhameeyaan oo iyagu dhamaystaan ayaa arrinkaas isaga oo ka jawaabaya oo waxaan oo eedeyma u galay wuxuu yidhi Khaliif wasiir baa la doonay dadna reerkii uu ku soo hoos noqday oo reerkii uu gurgurinaya wasiirka uu la doonaya isagoo halku jooga wuxuu haystaa markuu wasiirka la doonay wuxuu sheegay oo kale inuu yidhi reerkii buu fadqalala ka dhaxwadaa xusbiye kale buu la socdaa inaba u cudiyay waddanka ka sharaxan buu dhisayaa waxa uu sheegay oo dhani waa rafadkii ay rafanaysay waxa allaale wax ka jira iyo wax cadeyma u hayatoona ma jirto xusbiga Kulmiye meelan kaga baxay iyo meelan u cudu galay iyo meelan waddan u galay toona ma jirto isagu wuxuu ahaa golaha deegaanka ka soo baxay rays darigii doorashadii buu soo baxay wuxuu noqday maayar buu magaalada ka noqday raggii soo saaray ee golaha deegaanka soo saaray isagoo masaajid saaxda oo $100 ku qaata xildhibaanka ka dhigay baan ahaa runtii waa ayaan daro inuu maanta eedeymo noocaas isagoo aan meel u bad qabtaa jirin uu soo jeediyo oo aflagaadada noocaas suuqa geliyo oo yiraahdo reer buu burburinayaa reerka ciidiga sarreysa ma jirto ciidiga la xajaalo badan toona ma jirto ina muraado waxaan ku leeyahay haddii aad joojin weydo aflagaadada iyo khaladaadka aad galayso aad maalin kasta qof saaran tahay in badan baa laga joogo waxa la soo farayaa waxa tahay iyo waxaad qabatay iyo waxaad cuntay iyo waxaad baabisay ayaa ummadda loo sheegay inaad taariikh madow aad ka tagiso baa ummadda loo sheegay inaad gobolkan waxba ka ahayn oo aad waxba kaga tagin ayaa loo sheegay wuxuu yidhi Khaliif xisbiyuu sameeyo calamaan kala jaajada uu isku xiray isaga sheegaya halka calamaanta la iskaga xiray iyo xisbiyada uu sheegayo saddex xisbi qaran baa jira mid waa ucud midna waa wadani midna waa Kulmiye balse waa sheego xisbiga afraad uu sheegayo Cabdirashiid Timir Hon Cable TV Burco